بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta ah what is a commercial bank. bangiga ganacsiga waa bangi faa'iido doon ah kaas oo ka qaada macaamiisha haysata lacagta dheeriga ah si isla lacagta ay deyn ahaan u siiyaan shakhsiyaadka iyo ganacsatada u baahan inay deyn qaataan ha noqoto inay noloshooda wax uga bedelayaan ama inay rabaan inay ku samaystaan maalgelin. haddaan si fudud u sharaxno mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan oo bangiyada ganacsiga sameeyaan waa in bangiyada ganacsiga ay deposit ama dhigaal ka qaadaan macaamiisha haysata lacagta dheeriga. tusaale sida aad ka aragtaan qaybta midig ayaa wuxuu dhiganaa deposit bangiga waxaana la siinaa 2%. bina lacagtaas ayaa loo siinaa deyn ahaan si ayadoo lagu dalacayo 8%. haddaba farqiga u dhaxeeya 8 laga jaray 2 oo noqonaysa 6 waa qaabka ugu badan oo bangiga ku dabaro qarashaadkiisa iyo inuu ka sameeyo faa'iido. haddaba 6% oo ka imaatay farqiga u dhaxeeya 8 laga jaray 2 waxaa loo yaqaanaa interest rate margin. deymanka bangiyada ay bixiyaan waxa ay noqon karaan deyn guri, mid ganacsi, deyn shakhsiyadeed, deyn gaari, deymanka kaleeto waxaa soo galaya sida deyn beeroo kaleeto loo qaatay. mahadsanidin waa inoo mar kala dira bilmo.